dugsiyada al irshaad schools بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا برنامج كيني برشاد أفكار الصومالية يعني جواه مع أحمد الصومالي ومركل إذن له كسر هذا حسدني في الصومالية يعشر كي نوجد بي ونالكي كسي أم بقاضو ومدد الصومالي وفصل كه سديدات cutubkuna waa cutubkii lixaad ee dhismaha afka Soomaaliga maanta waa 20kii bishii waa bariis 1441 laabin oo maalin isniina ah 13kii abriil bay ku beegan tahay 2020ka oo isniin ah magac qarsoon shalay waxaynu soo qaadanay maalinta arbacadii magac muuqda maantana waa casharka xiga oo ah magac qarsoon waa maxay magaca qarsooni magaca qarsooni waa magaca aan la arki karin ee aan muuqan isla markaana aan la sawiri karin ama aan la taaban karin sida farxad naxdin murugo qurux aqoon iyo wixii la midka ah aad ugu fiirso magacyadan iyo kuwii casharkii hore aynu soo dhiganay tusaale ahaan casharkii hore waxaynu inuu soo qaadanay reebaadiyu waxay wax ku ootaan hangool iyo gudun waxay ahaayeen magacyo muuqda waana inaga sawirnayna inay muuqda wax ku cadeynaya waynu sawir garanay kuwa laakiin ma sawir garanaa naxdiya sawir garanaya iyo farxad qurux aqoon midna lama sawir karo isla markaa midna lama arki karo wixii aan la arki kareynin lama sawir karo haddii lagu keeno sawir ay naxdin leedahay oo la sawir ka ma garanaysaa garan meeno way casharkeeni way maxay ku kala duwan yihiin hadaba magacyadan iyo magacyadii hore waxay ahaayeen kuwa muuqda oo la sawir karayo oo la arki karayo laakiin kuwa maanta waa kuwa ka kan oo la arki kareynin laakiin macna ahaan haddii la inoo sheego la isla fahmi karayo way casharkii hore waxay ku saareen hangool iyo gudun waynagii sawirnay bal isku day in aad sawiri karto magacyada maanta ee naxdin farxad murugo kuma sawir karayto waxay ila tahay inaynaan midnaba sawiri kareynin magacyadan hoos ku qoran waxaad u kala saartaa bal kuwa qarsoon iyo kuwa muuqda orod geed awood wahsi bidaar cali dooq jirid jin caws mugdi adar xusuus ilow tuhun baaxaga saaka daba muuqda iyo qarsoon marka ugu yaala muuqda waxa hoos tagay ta koowaad orod iyo geed iyo awood waxaan sawir kareynaa kaliya geed baa magac muuqda oo la sawir karayo laakiin orod iyo awood waa magacyo qarsoon wahsi fidaar iyo cali waa kuwo la sawir karayo oo muuqda laakiin wahsigu ma muuqdo caws mugdi dooq jirid jin jiridoo qulata ayaa ah mid muuqata dooqa iyo jinkuna lama arki karayo oo jinka isma aragna inagu isagu in arkaa laakiin inagu ma aragno waay caws mugdi cadar cawska ayaa ah iyo cadarka kuwo muuqda marfushka ay ku buuxaan waynu aragnaa cawskana waynu aragnaa laakiin mugdiga ma arki karo xusuus ilow tuhun halkaa muuqada waxba inuma yaalaan waayo xusuus lama arki karo ilowna lama arki karo tuhuna lama arki karo ma muuqdaan kuwaasi marka dhammaantood waxay noqonayaan kuwo qarsoon saas ayay halkaasi inoogu dhan tahay maxaynu kusoo gabagabaynay magac muuqda iyo magac qarsooni maxay ku kala duwan yihiin magac muuqda waa la sawiri karaa waa la arki karaa laakiin magac muuqda lama arki karo lama la sawiri karo maxaa lagu kala gartaa labadii magac ee hore aynu soo aragnay fasalkii afraad
magaca guud iyo magaca gaarana magaca guud waxa laga bilaabaa xaraf yar magaca gaarana waxa laga bilaabaa xaraf weyn saas ayagana lagu kala gartaa waay halkaas ayay casharkaas maanta inoogu dheeyahay waxa inoo xigtaa layliska waalidku waxaan leeyahay dil hayraa min fadlakum ku gaargareeya ardayda inay ka shaqeeyaan laylisyada si inaguna xiisadaha dambe dil hayraa uga wada shaqeyno marka casharadu inoo dhammaadaan wixii laylis ahaa oo dhan bilaahi tawfiiq dugsiyada al irshaad schools